رمضان يا رمضان يا رمضان شهر الكتاب تلاوة وقيام رمضان يا رمضان يا رمضان شهر الكتاب تلاوة وقيام يا رمضان يا رمضان يا رمضان شهر الكتاب تلاوة وقيام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبرنامجكيني ولا ليال تحنها قصصك أنبياء أما وحويا وررك دنبال سيدياشا waxaynu xalqadii hore kaga soo hadalnay nabiyullaahi muusa sala allahu calayhi waalihi wasaxbihi wasalam xalqadan waxaynu kusii dhammaystiri doonaa qisadii nabiyullaahi muusa calayhi salaatu wassalaam runtii walaalayaal waxaynu soo tilmaanay nabi muuse calayhi salaatu wassalaam inuu yahay nabigii ugu weynaa ambiyadii ilaahay tabaaraka watacaala uu kasoo diray reer banu israa'iil nabigii ilaahay uu ugu jeclaana subxaanahu watacaala sida ka muuqata daahirka qur-aanka inuu yahay nebi ilaahay tabaaraka watacaala xuskiisa aad iyo aad u badiyey qur-aanka bal nebi la midii aanu jirin xagga xuska iyo sheegsheega ilaahay uu sheegsheegaya warkiisa iyo qisooyinkiisa oo 130 goor wax ka badan ayaa magaca nabi muuse qur-aanka uu ku soo arooray runtii walaalayaal qisadiisu waa qiso aad iyo aad u cajiiba waana qiso aad iyo aad yani waxaa la odhan karaa qisada ugu weyn ee qur-aanka ku soo aroortay acdam qisa oo nabi uu leeyahay oo qur-aanka ku soo aroortay inay ahayd qisada nabiyullaahi muusa sala allahu calayhi waalihi wasaxbihi wasalam waxay ahayd qiso mashaahid badan iyo tusaalayaal badan iyo xikmado badan iyo yacni waqaa'ic iyo dhacdooyin badan runtii waxa weeyaan xambaarsan faa'iidooyin badanna ay ugu jirto nebi maxamed calayhi salaatu wassalaam oo nebigu calayhi salaatu wassalaam qisooyinka looga warramayo waxaa ku jirtay tathbiit nebiga lagu sugayo qalbigiisa sala allahu calayhi waalihi wasaxbihi wasalam taas marka waxay keenaysay in nebi maxamed calayhi salaatu wassalaam qisooyinka noocaasa marka uu maqlo in rumayntiisii ay sii badato iimaankii nebiga uu sii kordho calayhi salaatu wassalaam sabirkiisuna nebiga calayhi salaatu wassalaam uu sii bato nebiguna si gaar ahaana isagoo ambiyado dhan isku sabirsiinaya si gaar ahaana nebi muuse calayhi salaatu wassalaam uu isku sabirsiin jiray oo waad xasuusataan xadiidkii nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wassalaam markii nebiga la dhibaateeyey calayhi salaatu wassalaam ee nebigu lahaa yarxamu allahu muusa ilaahay u naxariisto addoonkiisii muuse uudiya biakthara min hada wasabar uudiya biakthara min hada fasabar intaa in ka badan ayaa la dhibay oo la dhibaateeyey markaasuu sabray markaasuu adkaystay markaasaa waxa weeyaan yani uu xijistay marka nebigu isku sabirsiin jiray calayhi salaatu wassalaam qisada nabiyullaahi muusa si gaar ahaana runtii walaalayaal fawaa'id fara badan ayaa runtii aynu kala baxayna oo aynu ka qaadanaynaa horta ugu horeyn nabiyullaahi muusa calayhi salaatu wassalaam waxaa loo soo diray reer banu israa'iil reer banu israa'iilna waxay ahaayeen dad yani muran badan gaalnimo badan canaad badan madax adayg badan يعني ضد وحويان رير بن إسرائيل رنتي إن بدن كسو تاج النبي جودي إلهي تبارك وتعالى ونمعين معين فربضن بقى إلهي تبارك وتعالى أوسي سورة البقرة وح بدن أو كم من سورة سوحي كارم رير بن إسرائيل يعجائب تودي يسدع هايان runtii walaalayaal ilaahay tabaaraka watacaala aad iyo aad buu inoo gadiga yahuud inaynu raacno reer banu israa'iil in aynu raacno inaynu dabadhilif gaala u noqono si gaar ahaan yahuud iyo kristan waayo salaad kasta oo hadda aynu tukano waxaynu ku akhrinaa siraata aladiina an'amta calayhim gayri almaghduubi calayhim wala الضالين صلاة كستو إنه تكونينو كلمة داسينو أخرنا آية داسينو أخرنا غير المغضوب عليهم وأيو ضدك إلهي سبحانه وتعالى وحروضي ويهود ولا الضالين ومحي وكريستنكي ونصارو يضدك حوي كريستنكا اللومي مركا ولا ليال رير بنو إسرائيل إلهي تبارك وتعالى runtii yani wuxuu ilaahay ugu nimceeyey nimcooyinka ilaahay may garan subxaanahu watacaala ilaahay way ka gaaloobeen nimcooyinkiisina way ka gaaloobeen way ka kufriyeen yani dhibaatooyin fara badan oo ilaahay tabaaraka watacaala uu ka dulqaaday dhibaatooyin badan oo haystay buu ka dulqaaday waata aayaad badan ay kusoo aroortay waid anjaynaakum min aali fircawn yasumuunakum suu'a alcadaab war xasuusta markaanu idinka badbaadinay cadaabkii fircawn idinku hayay iyo dhibtu idinku hayay ee wa anzalna calaykum almanna wassalwa shimbirta waxa weeyaan yani hilib shimbireedka iyo waxa weeyaan malabka ilaahay samada uu idinka soo daadinayay subxaanahu watacaala oo aan idinka baahnayn inaad karsataan oo aan idinka baahnayn cunto inaad bislaysataan 40 sano ayaa ilaahay tabaaraka watacaala malabka uu uga soo ridayay samada iyo waxa weeyaan hilibka waxa weeyaan shimbirta oo sida isaga cunayeen marka walaalayaal runtii dad aad u canaad badan ay ahaayeen nabigeena calayhi salaatu wassalaam si gaar ayuu inooga digay wadooyinkooda in aynu raacno haddaynu bal hadda eegno waxyaalaha ilaahay tabaaraka watacaala uu ku nacay reer banu israa'iil waxa ugu culus waxyaalaha ugu culus waxa kamid ah in ilaahay tabaaraka watacaala uu yiri كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه xumaanta ay sameynayaan iskamay qaban jirin
xumaanta ay arkaan ee midkood uu sameynayo ka kale kamuu qaban jirin oo muu ku oran jirin war ilaahay ka baq waxay ka tageen shaciirat al-amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar sida awgeed walaalayaal u fiirsada markii ilaahay tabaaraka wa tacaala uu inaga in ammaanayay ilaahay muxuu yiri kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله إلهي سبحانه وتعالى إنتانو شيئين إيمانك إنين إلهي الرمان سنهاي وحوري خير أمة آياتهين وأخرجت الناس تدك الله سو صاري تدك يقدم بي تدك أما أمدي يقدم بي سيء أمدها الله سو صارا تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وحقوق مهم أمة محمد عليه الصلاة والسلام أي كسو عن تهي وحي تهي تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله لكن وتؤمنون بالله تاسو مشترك أو أمدك لا أوفر بدن بإن لو ذاك إيمانك إلهي أي رميسيين لكن سجار هانا أمدين وحي كل شيء تهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سيدا وجد ولا ليال عن حمان تلسك قبته قفك حمان تسمعني الله لا تليه أو الله نستحيه أو لقول هذا إلهي كبق waxaad samaynaysaa waa dembi oo qofku hadduu isagu wanaagsanaado masjidkana uu soo galo aanu odhan aniga maxaa iga galay dadka kale daci lkhalqa lilkhaaliq dadka u daa ilaahay subxaanahu watacaala qofku waa inaan odhan sax dadka ilaahay baan u daynayna subxaanahu watacaala oo ilaahay baa waxa weeyaan la xisaabtamaya laakiin inagana waxayna saaran al-amr macruuf wa nahy can munkar inaynu dadka wax u sheegno qofku xumaanta samaynaya gacantiisa la qabto wattaquu fitnatan laa tusiibanna aladiina dalamuu minkum khaasa ayaa ilahay yidhi subxaanahu watacaala runtii walaalayaal qisada nabi muuse calayhi salaatu wasalaam waxyaala cajiibka ku dhex sugan waxay tahay lutfullah naxariista ilaahay subxaanahu watacaala walaa naxariista ilaahay kaama foga naxariista ilaahay way ku dhowda laakiin waxay u baahantay inaynu ilaahay weydiisano subxaanahu watacaala waxay u baahantay ilaahay inaynu waxweeya ka barino waxay u baahantay ilaahay inaynu ka dalabno subxaanahu watacaala waxay u baahantay inaynu gacanta ilaahay hoos dhigano u fiirsada qisada nabi muuse calayhi salaatu wasalaam sida cajiibka u tahay iyo sida baqdinta fara badan ee noloshiisii ku waxweeyaan wareejisan ilaa maalinku dhashay ilaa maalinkii nabinimada ilaahay tabaaraka watacaala uu ka dhigay rasuulka uu soo diray ilaa maalinkii waxweeyaan yani noloshiisa sida ay ula wadaagtay waxweeyaan yani baqdintu haddana maca hada sida ilaahay u badbaadinaya subxaanahu watacaala laba waxyaalaha walaal muhiimka aynu kala baxno waxay tahay al-i'tisaam billah الاعتصام بحبل الله حرق إلهي قفكو إنو قبصده إلهي قفكو إنو كأقدواده دباتونيك مركي إيماتان يقلق يعبصد قفكو ودريمه إنو قفكو حرر حق إلهي سبحانه وتعالى ففروا إلى الله حق إلهي وعرر قفكو إنو أقادو إن إساقي إلهي عيد ودحيس إنا نجري أذيك إلهي وحكو دحيا إناد كعنت إلهي وصل تأترض يا ربي يا ربي يا ربي ودي الله برده أو وقت يد الدعاء العجيب أدراتته وحيالك ولا العجيب كواحكم إذا أمضى يعني أمضى هدي أي نقطة مستضعفة أو اللي يتسده أو أي ضعيفته أو عكته هستيد اللي قالوا إنها يقوصا إني أوجاته هدي دينة إلهي تبارك وتعالى أي كسر بحضه ودينة إلهي أي وناجسه أن الله تبارك وتعالى معها إن إلهي تبارك وتعالى ولا شريه إلهي تبارك وتعالى isagoo tilmaamaya reer banu Israa'iil iyo in Ilaahay tabaaraka wa ta'ala yani dulligay ku jireen isagoo Ilaahay tabaaraka wa ta'ala tilmaamaya waxa Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu yiri وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا إلهي محكور reer banu Israa'iil إني معكم وأن إذن لا جرا إني معكم وأن إذن قرقارية وقرمة لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي الصلاة والزكاة والإيمان marka la idin ka helo arkaan al-islaam arkaantii diinta marka saxdaan ee arkaantii islaamka la idin ka helo waan idin jira ayaa ilaahay yiri subhanahu wa ta'ala waxyaalaha walaal ajiibka waxa kamid ah ee uu ka faa'iideysano qisada nabi Muuse alayhi salatu wassalaam baqdinta tabiiciga ah qofka ku dhacaysa ee qofku uu wax ka baqo inaanay ahayn naqsi oo waa wax nafta ku abuuran inay yihiin waa in la ogaada والنبي موسى عليه الصلاة والسلام سيديد يطبن آيات وحي تلماميا بقدنتا وكسف يستنى نبي الله موسى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يبتلاق إلهي سبحانه وتعالى وكو ابتلاي الرمى فربضا وحويا نرشي سكمدا يعني آياتك ابتلاق وكسو هي النبي موسى عليه الصلاة والسلام بقدنتا وكتسني إنه بقي إلهي حكول قال لا تخافا فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى لا تخاف دركا ولا تخشى قال رب إني أخاف أن يكذبون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون ففررت منكم لما خفتكم لا يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني فأصبح في المدينة خائفا فخرج منها خائفا قال لا تخف نجوت أقبل ولا تخف فأخاف أن يقتلون إني أخاف أن يكذبون
كل هذا ومعاني إن تسنيس بقدنت وكسف يسنا نبي الله موسى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لكن مع كل هذا إلهي مركز توحي كورني لا تخف أبقن واي إلهي بلشري سبحانه وتعالى واي إلهي بو كحبنا سبحانه وتعالى واي إلهي بو الضون وتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى الضون مذي إلهي بو حقيقي نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام وحكى له رنتي ولا يلا إنه كلبحينا وإنه كقادنا إحسانك يسمى فلكو إنه يهي أخلاق دي رقنك وناكسنا أنبياء أردنا كسف يسناهين واضح السلطان قصة دي مركي نبي موسى عليه الصلاة والسلام ويمي ماشي لو رنتي مدين وأبونا شيخ كبير لبضي هبلوضة يريراء الدنيا إن وحويان يعني اللورد آمي وحويان إن وحوي الله ورابي أرجع سدو أرجع وجو ورابي يسوي لي وح مش قاعدة أو يديسن كل هذا وحنا تسنيسا إحسانك يسمى فلكو هلك وكجتشرو وحويان شريعة يو شريعة أنبياء وحوي هربا وحكى له ولا إنه كيف يديسن هنا قصدنا موسى وإنه كلب حينا إن دعوة إلهي سبحانه وتعالى مرك قفك داعية وياهي دعوة وقباقيه إن أسلوب كيس دعوة إنه وناتشيو النبي موسى عليه الصلاة والسلام سيجي والهلكي مركي إلهي تبارك وتعالى ودري فرعون ودري إلهي وحكوري اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. نبي موسى عليه الصلاة والسلام إلهي وحكوري إسراع أذيقي ولالك هارون دبنا أتغى فرعون دبنا لطلية أو وحويا يعني أنستحية فقولا له قولا لينا هذا الدبعسا وقبوا كلها لعله حلقيا يتذكر إن كوان توب أو يخشى ما إنه لا يكبقه. عند الله دريا وأيه وفرعون وطاغيه وحويا يعني أدونك أي يرتاي عد صومرت إسقى أكله ظلم جيس يدم جيس كبر كيس. عند الله دريا أنا وأيه عند الله دريا أنا ونبي الله موسى عليه الصلاة والسلام وأنبياء وفضل بدن والعزم كم إذا شنت النبي والعزم قال لهم جعابه أي إله تبارك وتعالى ودريا وحأوا كله فقولا له قولا لينا هذا اللين القبو هذا الوناكسن كله لعله يتذكر أو يخشى. هذا الكاقبو إلهي وحكوفة سورة النازعات مركي إلهي تبارك وتعالى أولي فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. وحد كتر هذا فرعون هل لك إلى أن تزكى ورميد وناكسناتد ورميد إلهي أطيعتد ورميد هنونتد هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى أن تزكى إن إصطاهرسه يعني قف ديدي يمتشرو مانت إن قفك مانت لغو إلى هذا قف ديدي مانت متشرو إن نفتي سمانت أطاهريه قف كستاد لغو نفت هذا طاهري ورنفت هذا سداس إسوغدان ورنفت هذا وناج ورنفت هذا طاهر قف ديدي يمتشرو هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى ربك مكوهنونيا ربك وددي سمك تصيا فتخشى مركا أدوك مركا أدعب صوته أديك مركا فائدة أنا قلنا هادي بنكو داعي كلي بنكو وضد بنكو تصيا وضد بنكو ساريا أديك قلنا أدا سيمريا وضد مركا ولا ليل وحلقة فائدة سنية إن دعوة مركا إنه كقومين الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى dhalinyaro iyo culamo iyo mashaayikhba in hadiga quraaniga inuu qaadano oo ah asal dacwada inuu noqdo rifqiga iyo dhibirsanaanta iyo qowlka leeyinka ah oo asal dacwada uu noqdo wala isticmaali kara shidada fi xiinaha markeeda sida nabi maxamed uu isticmaalay alayhi salaatu wassalaam laakiin asal dacwada asal dacwada waxa waa rifqiga iyo leeyinka iyo dibacsanaanta iyo hadalka qabow si wax way qofka wax uu ku qaato waati dhacday بعض أهل العلم علماء قاركود markii nin amiir hadalka uu ku adkeeyay oo ninkii amiirkii uu ku uri أنت لست أفضل من موسى نبي موسى عالم يهو النبي موسى كما فضل بندد وأنا لست أسوأ من فرعون أن فرعون كمليته هذا الكئيد دبعي هل كاسين كل ما يننا قصة النبي موسى وقصة آدي أدو عجيبة فوائد فربضنا حوي لغلب حيو لكن إنهاس أي هذا كل آن وقت وهذا وإنه سامحين هل كاسين كتوشين هنا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. رمضان يا رمضان يا رمضان شهر الكتاب تلاوة وقيام رمضان يا رمضان يا رمضان شهر الكتاب تلاوة وقيام يا رمضان يا رمضان يا رمضان شهر الكتاب تلاوة وقيام